furiinka waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga hadlo insha Allah arrinkaas oo baaray waxaan ku soo koobay ilaa qodobo yar oo dhowr ah iyo talo ugu dambeeyaan insha Allah qodobo yar aan soo qaadan doona talaan idin dambeeysiin doona qodobada aan ku soo koobay waa qodobada sababay inay guryaha dumaan taladana insha Allah gadaal idin ka siin qof walba aan taladaas iyo qaato xaaskiisa oo la dhaqman insha Allah gabar dambe oo daayar ah 18 years 17 years 20 years jirtani carmal ma noqon doonto ama garoob afka u fiicna laakiin okay carmal ma noqon doonto arrinka koowaad ayaa ah been horta mar hore la isku soo sheegay ayaa keeni kara furiinka gabdhaha da'da yar ee hadda soo baxayo waxa laga yaabaa inuu wiilka been ku soo xirgeliyay gabadha waxa laga yaabaa gabadhu inay been ku soo xirgelisay wiilka markii arinta saxda ay imaatay oo guurka ah ama in mustaqbal la wadaago guri la isgeysta ah arinta markii ay imaatay waxa laga yaabaa inuu meesha fashil ka dhacay tusaale yar ayaa idin siin doona tusaalahaas oo ah waxa laga yaabaa gabadhu in lagu soo sirsirtay ama looga soo dhaadhiciyay in la dhahay waa ku biilan kara wanka adkaay heer macnaha familkayga hadii aan famil dhisto waan biilan karaa familkayga waan ka adkahay waxyaalo nooca baa laga yaabaa in gabadha lagu soo sirsirtay markii xaaladda dhaxda ay ka soo fariisatayna in xitaa ficileeda ama asaageeda uu la tartansiin waayo ayaa laga yaabaa waa laga yaabaa sababtoo ah gabdho inta ugu badan waxay jecel yihiin gabadha kale saaxiibteeda oo la qabo oo familka leh sidoo ninkeeda oo la dhaqmo si ka fiican inuu ninkeeda kan oo la dhaqmo beenta inta ugu badan oo gabdhaha loo sheegana waxay tahay waxa la leeyahay abaay hada ku guursada farxadan ku siin doona asaagaaga ka hormarin doona nolol waxa ku noolaan doonta tan ugu fiican ee nolol ay macnaha ay ku noolaadaan gabar la guursaday gabadhu waxay is oranaysaa waa soo kacda hooyada alaab u dhaqda iskuul ba aada maxaa nolosha ku soo ziyaadaysaa waa may xaajigaaga maashiirkiisa gashid warkay is leedahay mar alaala markii ay dhacdo in la guursado arintii saxda ahna ay abaarto isbuuc todobada laga baxo waxay arkaysaa nolol ay ku riyoon jirta ama isdhihi jirta nolol ka dugan waan ogahay dadka arrimaha jaceelka ku xeel dheer waxay dhahaan qofku jecel haduu hal shilin xitaa uu sahiisanin waa la noolaan kartaa laakiin xaqiiqda ayaa ah haduu wiilka gabadhaas uusan dhaqan karin inuu gurigaasna jiri karin maxaa dhacay bini aadan ayaa nahay oo nolol ayaa loo baahan yahay nolol waa muhiim nolol markii laga hadlaayo inta ugu badan waxay leeyihiin waa cuntaa waa kacdaa cunitaal haddii la helo xitaa waxyaalo dheeriya imaanayo marka nololaa loo baahan yahay xabiibi in lays dhaho nolosha saxda markii la abaaran inay ugu kala wada imaanayso marka istaabka labaad ama qodobka labaad ee keena burburka qoyska ama da'yarta isguursanaysa kala takooda wuxuu yahay istaabka labaad wuxuu ku leeyahay degdeg iyo damac waali ah inaad degdegtaan damac waali inoo idin qaado dareemihiin aad xakameyn weydaan familka aad waashaan oo dhahdaan iska keen guuriya aroos isbuuc oo todobada markay dhamaatana la iska hor imaado sidoo kale waxaa keeni kara degdega in gabadhu ay wiilka qurux ku qaadato ama wiilka uu gabadha qurux ku qaato meesha lagu degdego asigoon ogaanin dabeecadihiisa wiilka iyo asigoon ogaanin gabadha dabeecadaheeda in meesha dhaqsi degdeg damac waali ah u qaado oo la isguursado midaasi ay shakhsiyad fiican ku hoos jirin waayo gabadha hadda aad jirkeeda ku qaadato quruxda wajigeeda structure-ka macnaha jirkeeda iyo waxa hadda ku qaadato dhaqid guriga la rabaa boobo maxaa la sameeynaa qurux wax ma tartee waxaana dhacda markii la aqal galo in ay ka soo ifbaxda meeshii dabeecadii ama habdhaqankii dabiiciga ahaa taasi oo qofkii kalena jahwareer ay ku noqoto ama marxalad kale ay ku abuurto gabadhuna ay go'aan ku gaarto inay wiilka madaxeeda ka qaadato wiilkana uu go'aan ku gaaro inuu gabadha madaxeeda siiyo halkaana waxaa imaanayo in dhaqsi lagu kala tago sida awgeedna meeshii madax ayaa la siinaya gabadh waxay noqonaysaa carmal wiilkina wuxuu noqonayaa mid hal boos ka soo buuxsamay dhaqsi ama soo guursadayba hore guur u soo maray familkana meeshii waxay la soo istaagayaan hadii kasteeda la iska dhigan lahayo kana hadda waa ikhsaari hoogeelaha qodobka saddexaad ama istaabka saddexaad wuxuu ku leeyahay waxa keeni kara inay familka da'yarta ah ay dhaqsi kala tagaan wax kale ma aha family baleen la'aanka macnaha familiga ama markii ay dadku iswada guursadaan sida la wada ogyahay waxay noqdaan family baleen inaa samaysatiin waaye inaad jadwal samaysataan baleen la'aanta waa ku wareeraysaa nolosha sidee ola jaanqaaday labadiina ku cusub tihiin dad isku cusub waa tihiin qof walba dabeecad u gooniyo leeyahay telefoon la iskala hadlo wax lagu ma kala ogaan karo sida awgeeda family baleen la'aan ayaa keeni karto mid kale Soomaalida horta ma taqaanaba family baleen waxay ku Allah waxa lagu leeyahay sheeko gaal u keenay meesha sheeko gaal ma ahan ma aaminsanidin family baleen inuu jiro maanta hadii ay dhacdo ina adiga gabadhaada sidaa doonta ka samaysan kartaa noloshaan muhiim ma ahan siday aabaha iyo hooyada u soo noolaayeen asr jaahiliga ina u noolaataan muhiim ma aha hadii ay aabaha iyo hooyada soo kala tagin in muhiim ah in isdagaali jireen in ay mar kala tagaan isku soo waxa soo dhan kama hadlayno hadii ay wiilooda soo kala tagin ilaahba u qoray ma soo kala tagin laakiin maanta sanadkan waxa badan in dhaqsi la kala tago sida awgeeda way fiican tahay family baleen in la samaysto hadii amaanta soo wada toostaan adii qoftaada markii aad soo kacdaan darbi idinku hore idinku dhagan yahay family baleen oo la dhamcnaa adiga gabadha ka sameynaysaa ninka waxaanu sameeyna macnaha waxyaalo oo degan hadii aad leedihiin qorshe
qorshe ah wiligiin wax ma idinka halaabi doono xaqiiqda ayaa hadduu sameeshaas ka jirin family qorshe macnaha qorshe family hadduu sameesha ka jirin nolosha si lala jaan qaado way adkaanaysaa family balayn waa qorshe dhameystiran waxaan ka soo qaadan doonaa insha Allah inta aan ka jeclaan lahaa inay Soomaalidu ku dhaqanto haddii aad rabtid in jacaylka reerkaaga uu sii jiro qoftaada ama xaaskaagana sida ku soo guursatay ay ku ahaato kala kori caruurta xaaskaadana caafimaadkeeda iyo miisaankeeda ilaali huwaal waayo jacaylkaas wiligiis dhamaan maayo wallahi ninka inuu xaaskiisa naco ama uu ka tago ama uu ka fogaado waxa sababo muuqaalka xaaskiisa ay leedahay waxaana keena midaas waa dayac uu sababay isagu macnaha wuxuu dayacay qoftiisii waa dayac isagu uu sababay maysan keenin ayada sababtoo ah maanta haddii aad caruurta kala koriso tusaale wiil cunug baa ku dhashay ilaa ay hal sano uu ka gaaro uu nadiif noqdo fadhigii iyo socod meel uu qabsanayo aadan cunug kale ka daba keenin ilmaha Soomaalidu waxay dhahdaa isku nuug iyo kala nuug waxay dhahdaa ciyaalku markay isku nuug yihiin midkaan baa hadda naaskii ka kacayo haddana wiil cunug kale calooshu ku wadaa kiiba socod ma gaarin mid kala dhash adu shiinaas ma tihid horta waa helaysa wuxuu Ilaahay ku siiyo arsaaqdan Ilaahay baa bixi lama diidana laakiin ciyaalka waa inaa kala korisaa haddii ay dhacdo in cunugaagu socod barbaranayo ay cunugii kala aad macdid inuu dhasho haddii kooba uur qaado xaasku uur qaadaysaa waa shaqo dheer jirkeedana ma u sababayo in faad badan uu soo galo qoftii aad nacdo ma sababayso qoftaadu waa inaa adiga kala shaqaysaa quruxdeeda de kaligeeda ma ka shaqayn karto so insha Allah marka qodobkaasna waa muhiim waa laga yaabaa Soomaali badan idaawanaysa ama dad badan idaawana inay leeyihiin ninkan wuxuu ku hadlayo faarax Soomaali kuma dhaqmo waa laga yaabaa inaad dhahdid waa lagu dhaqmi karaa waa ku sheegay sida doonta ayaa noloshan ka samaysan kartaan adiga qoftaada ama adiga gabadhaada xaaskaaga ka wada nolosha sida doonta ayaa ka samaysan kartaan marka qof wax fahansan guurso gabarey wiilo adigana qof waxa dhaado sameynaysa guurso naag marka waxa sameyn waxaana cunin dhaado jikada wax kula dhuumanaysa iska ilaali soo marka insha Allah inta waa igu muhiim saddexda qodob ayaan ku soo akeyn doonaa qodobka kala taga wiilka iyo gabadha keena insha Allah marka hadda waxaan u sii gudagali doonaa taladii aan idin siin lahaa aniga idinka wiilasha hadda xaaska qabo horta xaaska leh wallahi waa naga fiicantiin kuwa iskaabulada aniga waa naga fiicantiin sababtoo ah singalnimada ma haysatid qof aad dareemahaaga naxariistaada galgaceylkaaga aad siisid ama u soo bandhigtid ma haysatid markaa single tahay waxa doontana ma sameyn kartaa hadaa gabar saaxiib la tahay xitaa laakiin markii aad xaas leedahay qoftaada wax walba u soo bandhigi kartaa so insha Allah maanta waxaan halkaan idinku siin doonaa taladaasoo markii aad gabadha soo guursatidba saa ula dhaqaaqaysid ama u sheegaysid insha Allah waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah inaan qoray ama aan diyaariyay wax computerkayga ku jiro qoray waay wax qoran waa waxa talada idin siinayo waa wax maskaxdeeda ka soo maaxday oo meel jabi degan joogo qurux badan joogo aan qoray insha Allah taladan waa ii diyaarsan tahay waxaan kugula dhaqmi doonaa ama aan siin doonaa talada qofkii aan guursado insha Allah waxa dhacday maalinta inaan qoray taladana waxay ku saabsan tahay xaaskii aan guursado in haweenka ugu horeysa aan siiyo waa waxa aan qoray weeyaan markii arooska uu dhamaaday mashxareyntii xafladii baashaalkii uu dhamaaday ayaa waxaan xaaskayga ku dhihi doonaa talada iska qaado ku anfacaysa waa ina adigana ku dhahdaa markii xafladii mashxareyntii baashaalkii dadkii dhan ay kala yaraadeen arooska kadib gabadhiina gurigeeda lagu keeno waa ina ku dhahdaa sidaan xaaskaygii qof walba gurigiisa ayuu aaday mashxareyntii iyo baashaalkiina way dhamaatay guurkeenu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u qurux badan hadda waxaan gabagabaynay guurkeenii iminkana waxaa sii dhisi doonaa gurigeenii hadda waxa haray kaliya waa aniga iyo adiga iyo wixii aan beri noqon doono inta aan macaanka nolosha bilaabin waxaan jeclaystay inaan kuu sheego wax yar mana ahan maanta wixii ka dambeeya inaan wax kaa qarin doono telefoonkayga waxaad u isticmaali doontaa sida kaaga haddii aad doonto facebookkayga whatsappkayga instagramkayga snapchatkayga everything xitaa tiktok iyo youtubekayga waxaad u isticmaali doontaa sida kaaga oo kale haddii ay dhacdo xitaa qanaacadaadu inay tahay inaan hal telefoon wada isticmaalno banaankana u qaato xaafadda markaa imaadan adiga isticmaashid way dhacaysaa middaa don't worry xaaskayga xalaasha markii aan tayda ka hadlo waxaan noqday qof caruur 5 sano ee la soo dhaafay ee noloshayda waxaan ahaa nin weyn waqtiyada qaar xitaa waxaan seexan jiray anoo gaajaysan wax walbana waxaan u sameyn jiray sida aniga aan rabo haddii aan rabo habeenkii baa soo daahi jiray qof aan la kulmi jiray meel walbaan aadi jiray xitaa guriga haddii aan rabo waqtigaan raban imaan jiray xitaa maanan soo hooyan jirin laakiin laga bilaabo maanta waxaas iyo dhan way soo dhamaadeen ogow maanta laga bilaabo waxaad noqotay hooyaday oo canaananaysa markaan guriga ka soo daaho waxaad noqotay hooyo ikicisa subaxii si aan shaqada u aado waxaad noqotay hooyo hubiso inaan seexda anigoo gaajaysan iyo in kale waxaan ku faraxsanahay inaan yeeshay hooyo kale mar labaad waxaana kuu rajaynayaa inaad noqoto hooyo fiican ha igu noqonin qof khalafsan waxaan kuu noqon doonaa qof aan madax adkayn hadalladaadana maqla waqtiyada qaar waa laga yaabaa inaan kugu noqdo madax xanuun ama madax aan kaa xanuunjiyo laakiin madax xanuun walbaba daawadeeda anigaa noqon doona waxaan xanaaneyn jiray caruurtii iga yar oo walaalahay ah waxaanu ahaa aabbo mar walba ka fikiro sida awgeeda inaan maanta adigana aabbo kuu sii noqdo oon waqti walba kaa walwalo wax dhibaataa uma arko kusoo dhowo marka xabiibta noloshaan cusub taladana waa mid aad iyo aad u qurux badan soo ma taladan intaasay ku egtahay insha Allah soo waynu ku anficaysaa qaado wiilo
joogo xitaa gabaray adiga waa isticmaali kartaa qaybta asiga uu warga ka aad duhur ina bedelato asiga waa isticmaali kartaa soo marka insha Allah muuqaalkeen maanta halkaan aan ku soo akeen doona inta ka kulmeen muuqaalkan muuqaalka xig insha Allah see next video mumkanaata awleeyo kan mana abahooda